barnaamijku waa dhabka hadal ee adigu ku dhiiro xaqiiqda waa dood kulul salkana ku haysa asalka wacyiga maanta adigu waxaad ka tahay qayb xaquusan hana qoomameen taariikhdu waa marag madoonto waa dood kulul oo u dhaxaysa dhammaan fanaaniinta Soomaaliyeed magacaan ugu magac darna ayaa waxa uu noqonayaa barnaamijkani dhabka hadal ama runka sheeg barnaamijkani wuxuu salka ku hayaa waa qosol iyo qaraaxo jafoonu ma ka marno abwaaninta markii la laho inay hees ka helno waxa u fudud gabarna ka heshay gabarna hees ka hesho markii gabar Soomaaliyeed ay rabto fanka inay soo gasho ay hubbigeeda u noqdo in jidgooyooyin badan oo ka soo horeeyo jidgooyada ugu horeysana waa abwaanka u yaalo laakiin aniga qaasatan canabahan waqti hore aan soo caanbixi lahaa shaaq soo caanbixi lahaa waxaan ka soo caanbixi waayay waxay ahayd abwaaninta qaar hadda inta aan ka sheegay magacyadooda awaanada kale waxaan leeyahay raalli ahaada oo naga maqan tihiin inta aan maaragtay difaac gali karno waa inisi jira laakiin abwaan walba waxa la rabaa inuu sacadeeyo habka uu ku shaqeeyo iyo hab dhaqankiisa intuu kaamarada yimaado anigu hebel baan ahay sidaana kuma shaqeeyo sidaasaan ku shaqeeyaa inuu yiraahdo asiga laga rabaa erayar ama wax yar oo la sameeyo laguma noqon karo abwaan horta nidaam xumada jirta iyo dhibaatooyinka iska jira yaan nagula heshanin meel walba ay dhibku waa gaaray abwaanku waa idin sheego arka kama soo dhicin dadku kama shaqeeyeen cali ku camirtana waa jiraa caaw waxaan dul joognaa aan raahday oo rabnaa inaan si fiican u faaqidno abwaan annagoo u tagi doono xilliyada soo socda hadduu eebbaha awoodda leeyahay oo ogolaado innagoo dadkana intaan ka ballaarin doono hadduu eebbaha raalli ka noqdo laxamiiste musician fanaan cameraman editing xataa make up ma dhaafeen wax alla waxaad idinka danaynaysaan waxaa jecelnaha marka inaad noogu reebtaan commentiga si aan isula soconno